ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxa ay lahayd ciidan xilligii gumeystaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa sameystay mid walba kamid ah ciidan boolis ah. waxaana si rasmi ah loo daafuray sanadkii 1927 xilligaas oo ay heleen tababaro dheeraad ah iyo aqoon. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 12 Abriil 1960 kadib amar uu soo saaray Madaane Cabdullaahi Ciise Maxamuud. ciidanka xoogga dalka waxaa lagu aasaasay 8 horin oo ka tirsanaa ciidanka booliska. halkii horin waxaa lagu qiyaasaa 100 ilaa 120 askari. ragga ugu caadaa ee ciidanka lagu bilaabay xoogga dalka dhammaantood waxay ahaayeen boolis, waxaana kamid ahaa gaashaanayaal sida Daawud Cabdullaahi Xirsi, Niir Liqato, Maxamed Ibraahim iyo rag kale, iyo kuwa kale oo kabtana ahaa sida Maxamed Siyaad, Cali Samatar, Gabayre, Cabdullaahi Yuusuf. raggan iyo in kale badan waxaa laga wareejiyay ciidanka booliska oo waxaa lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka. Soomaalida markii ugu horeysay oo ay arkaan ciidanka xoogga dalka waxay ahayd 1 Luulyo 1960 xilligaas oo ay dalka ka dhigeen dabaaldegyo ku aadan xorriyadda iyagoo la wareegay ammaanka dalka iyo dadka. tira ahaan ciidanka dalka xilligaas wuxuu ahaa 4000 kuwaas oo kala ahaa 1000 askari oo Talyaani uga tagay dalka, 2000 oo ahaa askar la qoray, iyo 1000 ka yimid waqooyiga dalka oo xilligaas maamuli jiray gumeystihii Ingiriiska. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaasiisa kadib waxay tababaro hub iyo saanad ka heleen midowgii Sofiyeeti. kadib markii 1963 ay dalka Ruushka safar ugu tageen ra'iisul wasaarihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo taliyihii ciidamada qalabka sida Jeneraal Daawud. Ruushka ayaa ogolaaday in ay qalabeeyaan ciidamada xoogga dalka oo tiro ahaan la sheegay markaa inay noqdeen 35,000. hadafka ciidanka xilligaas wuxuu ahaa soo helidda iyo xoreynta dhulkii Soomaalida ka maqnaa ee uu gumeystuhu ka jaray. dagaaladii ay qaadeen ciidanka xoogga dalka, dagaalkii ugu horeeyay oo ciidan Soomaaliyeed galo waxa uu dhacay 1964 waxaana ka dhacay xadka Wajaale ee Itoobiya, waxaana guushu ku raacday ciidankeena. xilligaas waxaa ahaa taliyaha ciidanka Jeneraal Daawud, waxaana kaloo ku shahiiday geesigii diiday inuu calanka dhulka dhigo ee Xalane. waxaa xigay dagaalkii 1977 Soomaaliduna ay u taqaanay 77. dagaalkan waxaa loo yaqaanaa dagaalkii xoreynta Soomaali galbeed, waxaana ciidanka xoogga dalka lagu xasuustaa geesinimadii xad-dhaafka ahayd. waxay furumaha cadawga ku jireen saacado badan, waxayna gacanta ku dhigeen inta badan dhulkii Soomaali galbeed sida Mustaxiil, Wardheer, Dhagax Buur, Godeey, Qalaafe, Qabri Dahare, Jigjigo iyo magaalooyin kale oo waaweyn, waxaana qalqal galay gebi ahaan dowladda Itoobiya. ciidanka Soomaaliya ayaa xilligaas noqday ciidanka saddexaad ee ugu awoodda badan guud ahaan qaaradda Afrika marka laga reebo dalalka Nigeria iyo Masar. 1990 kadib burburkii dalka waxa uu dhibka ugu weyn soo gaaray ciidanka xoogga, mana aysan dhicin inay dib u soo aasaasmaan ama gooni u istaagaan, waxayna ku dhex milmeen qabaa'ilkii. waxaa meesha ka baxay heebadii ciidanku u lahaa. 2000 wixii ka dambeeyay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa bilaabay inuu iskugu yeero ciidankii xoogga dalka isagoo taliye uga dhigay Jeneraal Ismaaciil Qaasim Naaji. maalinkaa wixii ka dambeeyay ciidanka Soomaaliyeed waxay u jireen magac ahaan, laakiin inay noqdaan ciidankii laga heebeysan jiray waxay u baahan tahay waqti iyo dulqaad dheeraad ah.